bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka maanta warbaahinta xog waran qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya beeladaga galmudug oo wada qorshe ka dhanaa qorqor iyo culays soo wajahay garoon diyaaradeed fariisin ay ka dhigteen shabaab iyo xarumo kale oo la weeraray FBI-da oo shaacisay diblomaasi Sacuudiyaan oo ku lug lahaa weeraradii September 12 Turkiga oo Imaaraadka ku eedeeyay in Soomaaliya, Liibiya iyo Yemen ciidamada AMISOM in waqtiga loo kordhiyo Mareykanka oo Shiinaha ku eedeeyay inay jabsadeen xog la xiriirta baaritaan lagu waday COVID-19 iyo kooxda Taliban oo sheegatay mas'uuliyadda weerar ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacay wadanka Afghanistan. fadlan haddaad ku cusub tahay channelkan subscribe sar kadib dooro calaamada gambaleelka like share comment hagaag qodobka ugu horeeyaan ku bilaabo wararka laga helay magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in culays dhanka siyaasadda uu soo food saaray madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor qaar ka mid ah beelaha dega Galmudug ayaa ka soo horjeestay qorshe cusub oo madaxweyne Qorqor ku wajahayo maamulkiisa iyagoona sheegay in xuquuqda qaar la duudsiyay dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa sheegaya in arrintan culays weyn ay ku noqon doonto madaxweyne Qorqor haddii uusan tallaabadaasi wax ka bedelin warkeena FBI-da ayaa si aan ku talagalahayn waxay u shaacisay magaca diblomaasi u dhashay Sacuudiga oo la tuhunsan yahay inuu taageero siiyay dagaalyahanadii Al-Qaacida ee fuliyay weeraradii Mareykanka lagu qaaday September 12 2001 sidaasi waxaa wariyay Yahoo News aqoonsiga sargaalkan oo ka tirsanaa safaaradda Sacuudiga ee Mareykanka ayaa waxaa si qaldan u sheegay sargaal ka tirsan FBI-da oo ka jawaabay dacwad ay gudbiyeen qoysaska dhibanayaasha weeraradii 9 kuwaas oo dowladda Sacuudiga ku eedeeyay inay ku lug lahayd weerarada Majal Iskof oo saxafi baara kana tirsan Yahoo News ayaa markii ugu horeysay qaladka ogaaday waxaanu Al Jazeera u sheegay inuu ogaa qaabka sirta loo shaaciyay halka aad weli naga daawanaysaan daawadayaal wax ugu waran show markana mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa sheegay in kooxo ka socda Shiinaha ay bartilmaameedsadeen cilmi baaris ay ku wadeen xanuunka safmarka ee COVID-19 FBI-da Mareykanka ayaa sheegtay inay aragtay isku day lagu jabsanayo xogaha kooxaha Mareykanka u qaabilsan u helida daawooyinka caabuqa coronavirus Mareykanka ayaa hore dowladda Shiinaha ugu eedeeyay in shaybaar ku yaala dalkeeda uu ka soo baxsaday caabuqa corona oo saameyn xoogan ku yeeshay dunida oo dhan waxaana xanuunkan safmarka uu si xumeeyay xiriirkii u dhaxeeyay labada wadan in ka badan 4 milyan oo ruux ayaa cudurkan u haleelay dunida oo idil iyagoona Mareykanka oo qura ay ugu dhinteen in ka badan 83 milyan oo ruux ugu dambeyntiina daawadayaal kooxda Taliban ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerar ay dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay bariga magaalada Kadris ee dalka Afghanistan weerarka oo loo adeegsaday qarax ayaa lagu qaaday meel u dhow maxkamad military oo ku taala magaaladaasi qaraxan ayaa imaanaya 2 maalin kadib markii 56 ruux ay ku dhinteen weerar kale oo ka dhacay dalkaas Afghanistan afayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Afghanistan ayaa sheegay in weerarkii ugu dambeeyay ay sidoo kale ku dhaawacmeen 10 ruux guud ahaan daawadayaal intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa warkii maanta ee aad kala socoteen xog waran show nabadgelyo.